الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومالك اللباد يا محاضرة كوباد يا مؤتمر كيشن يتبناد يا سند والبا حلقة بوسكها وقبن قابيوه مسجد كان توفيق مقالة أوسلو يدلك النروي إن شاء الله تعالى. محاضرة إنه بلا ما يسعوان كيدو وحوية إرشاد الطلاب إلى طريق العلم. أرضيذة ولقوها نونيو طريقة أيو قاضيان وحبرشدة أما علمية وحا محاضرة عوان كاوضتين وقاضي لقي دونا وإنه قرن شيخنا دكتور شاطبي إن شاء الله تعالى. وحن كسلوا وين يا دكتورك هي محاضرة دي وتوس إنه بلعبته فليتفضل مشكورا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساد مقليسين waxay noqon doontaa muxaadaradeenu in sha Allah ta'ala ardayda ku hanuunintooda lagu hanuuniyo cilmiga jidkii ay u mari lahaayeen. cilmiga sidoo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay wuxuu yiri talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. cilmi in la dalbo oo la raadsado farad bay ku tahay qof kasta oo muslima oo rag ah iyo qof kasta oo dumar ah, intuba inay cilmi raadsadaani farad iyo waajib ayay ku tahay. mar hadday saas tahay cilmiga in la raadsado oo la dalbo jidkee loo maraa oo lagu heli karaa cilmigaas in sha Allah ta'ala, taas ayay muxaadaradu ay noqon doontaa biidhnillaahi ta'ala. marka koobaad waxaan ka hadlaynaa marka cilmiga fadliga uu leeyahay iyo dadka ahalka u ah ee cilmiga yaqaan ama baranaya fadliga ay leeyihiin, ninka caalimka fadliga uu leeyahay. taas ayaan ka hadli doonaa si kooban biidhnillaahi ta'ala. kadibna waxaan u gali doonaa mowduuca ayaan gudaha u sii gali doonaa biidhnillaahi ta'ala. alla wuxuu ka hadlayay isagoo ka hadlaaya cilmiga fadliga uu leeyahay aayado badan oo qur'aan ah. yaa wuxuu yiri bacda a'uudu billahi minash shaitaanir rajiim yarfa'illahu alladhina aamanuu minkum walladhina uutul ilma darajaat. kuwa iimaanka yeeshay ilaahay darajo ayuu kor u qaadayaa, kuwa cilmiga la siiyeyna darajooyin ayuu kor u qaadayaa buu alla leeyahay. alla aayad kale wuxuu ku leeyahay شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ألا وحو مرقشدي إنو كليجي يهي إساقا أيا اسم مرقشدي أو وحو يلا وحو كمرقي هي إنو سن ألا ما هاني ألا كلا وسنشرين ملائكتنا وكمرق دادك أهل علمك لهنا وكمرق. تاس وحي تصنع dadka ahlu cilmiga maadaama oo maraga koobaad uu isaga iska dhigtay, ka labaadna uu malaa'ikta ka dhigtay, ka saddexaadna dadka ahlu cilmiga uu ka dhigtay, sharaftaas ayaa ugu filan. alla isagoo sii wada wuxuu yiri qul hal yastawi alladhina ya'lamuuna walladhina la ya'lamuun. miyay siman yihiin dadka cilmiga leh iyo dadka aan cilmiga lahayn? miyay siman yihiin? kadib wuxuu yiri innamaa yatadakkaru ulul albaab. dadka caqliga oo saaxiibka waa dadka cilmiga la weeye, dadkaas ayaa waansama oo waanada qaata. ilaa wuxuu yiri watilka alamthaalu nadribuha linnaasi wamaa yacqiluha ila alcaalimuun. tusaalooyin badan qur'aanka markuu ku sheegay kadib ayuu wuxuu yiri mathalyaalkaas iyo tusaalayaalkaas dadka ayaan u yeelnay, mana kala garanayaan, dadka cilmiga la unbaa garanaya.
إلى قرآن كما قال لي وحوري بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم آيات عد ويان وددك علمك وصاحبك حبت كوضا وإلهي دقي آياتك إلهي فربنا وحان كنا ما استرينا مركا ددك أهل علمك وكهلي وحوكو شيغا إن يهين مخلوقاتك ودنب ددك وخربنا إن يهين أولئك هم خير البرية dadka makhluuqaadka waxa nool oo dhan dadka ugu khayr badani waa dadka ahlu cilmiga sidaas ayuu ku sheegay axaadiista haddii aan laba xadiid ka soo qaadanno oo cilmiga tusinaysa iyo dadka cilmiga leh fadliga ay leeyihiin nabigu wuxuu yidhi xadiid oo mucaawiya uu warinaya radia allahu tacaala canhu uu nabiga ka wariyey wuxuu yidhi man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofkii ilaahay khayr uu la doonay diinta ayuu fahamsiiyaa khayrantaasi waxaa weeye waa tanwiintaasi waxaa la yidhaahaa waa tanwiinu tacdiim iyo nakira waxaad arkaysaa qof aan cilmi lahayn oo khayr badan isagana waad arkaysaa waxaa laga wadaa yani khayr weyn qofkii la doonay fiqigaa la siiyaa laakiin dad kale oo waxaa jira iyakuna khayr leh oo laakiin aan diin fahamsanayn baa jira oo iska cubaad oo iska caabidiina oo aad arkayso marka aayadu ama xadiidku kuwaas ma uu anfiyayo xadiidu abu darda warinaya wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi man salaka طariiqan nabiga ole baan maqlay buu yidhi qofkii jid qaada yaltamisu fiihi cilman qofkii jid qaada cilmiga waa la raadsan jiray berigii hore waa la doonan jiray qofkii jid qaada oo cilmi uu ku raadsanayo saddex shay oo muhiim ah ayuu ilaahay ku abaalmariyaa midda koobaad waxaa weeye sahala allaahu lahu طariiqan ila aljanna jidkii jannada uu u qaadi lahaa alla waa u sahlayaa hadduu cilmi uu raadsanayo waina almalaa'ikata la tadacu ajnixataha liطaalib اlcilmi ridan bima yasnac malaa'igtuna garbaheeda ayay u dejisaa iyadoo ka raalli ah qofka cilmiga raadsanaya waxa uu samaynayo وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء ملائكة يا وحا دركة جوغا وحا عركة جوغا دنب داف وحي ويديسنيان قفك علمك وصاحبك علمك الراتسنيا أي دنب داف ويدينيان حتى كبضها كتير حتى كوي برقة جوغا كريا ماهن كذب وحول النبي صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب قفك عالمك قفك اسك عبادي سنة سوء فضل البدنية طبعا وحوى وعالمك علمك سكو عمل فلي ويان واسدا ضيحوا حدقها كلا وكلا وفضل البدنية يعني وقفتين بدنية ويان وإن العلماء ورثة الأنبياء علماء إياك وحيد أحلان أنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما أنبياءنا مين دحل سنين دادك دينار يا درهم ولا بدي العقود ذهبك أن نقانو ودينار لورنتري يا فضلك عص لبداس منا مين أنبياء لك ما دحلين وإنما ورثوا العلم علم بيد حل سيين بوري النبي صلى الله عليه وسلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر قفكي علم قاتنا ديف آد وين بوقاتك كدب انت مركان كسو بحنا كدب وحانو تجينا ان شاء الله تعالى علماء سلف كاها هي اقوال العلماء محي كيراهن ددك اما علمك فضلك وليه يا ددك برانيا محي كيراهن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وحري كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من لا يحسنه ويفرح اذا نسب اليه وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو منه أو من هو فيه علمي وحا وقف لنبوري شرف إنه شاكتو قف أنا قوم به أو كفر حمركي اللي يقولها عالم باتاي وحبا تقانا مركي اللي فرح ودنتو جاهلين فول حما وحا وقف لنبوري قفكي مركو اسكبر النقضو جاهل كها وهدي اللي يقولها أدو جاهل باتاي حناق ودنتو أو ماشي رفاضو انت سياكو وقف لنبوري أبو مسلم الخولاني وحري العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء علماء مركي دولك جوغان وحي لمديهين حدقها عرك كويا لوكلا أي لمديهين إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا حدقها والقس عنتري
berigii hore haddana waa lagu socdaa dadka ama malaaxiinta ahee maraakiibta wada ama diyaaradaha wada dadkaasoo dhan way ku socdaan marka waa xidigahoo kaluu la mid yahay bay yidhaheen culimmadu marka haddii ay xidigahaasi dadka u muuqdaan waa lagu hanuunayaa oo meeshii waa la tegayaa haddii ay ka qarsoomaanna waa la dhumayaa oo waa la halaabaya abulaswad addu'ali raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi laysa shayun acaza min alcilm cilmi wax ka fiican ma jiraan almuluuku xukaaman cala annaas dadka boqorradiihi dadka ayay xukumaan waalculamaa'u xukaaman cala almuluuk dadka culimmadiina boqorrada ayay xukumaan hadda unbay aakhiru zamaankan iyo waqtigan dambe unbay waxaa dhacday faslu ddiini can iddawla oo ninkii sheekhaa la yidhi xagga adugu xaggan iska yar joogjoogo dumarkii iyo uun meelaha uun waxu fafatwo unbaa la yidhi ma ahaane dadka xukaamta ah haddii uusan ninka caalimkiiba hoggaamiye uusan ahayn dadkaas xukaamta ayuu ku ilaalin jiray sharciga ilaahay ku ilaalin jiray intaa markaan ka baxana kadib mawduuca gudahan u sii gelayna waxaan ka hadlaynaa qofka mutacallimka ah ee wax baranaya aadaab baa looga baahan yahay naf ahaantiisa aadaab baa looga baahan yahay sheekhiisa markuu wax ka baranayo aadaab baa looga baahan yahay darsiga markuu dhiganayo aadaab baa looga baahan yahay cilmiga markuu bartaa ama uu dhiganayo aadaab baa loo baahan yahay intaasoo dhan baan insha allahu tacaala yaan ka wada hadli doonaa kadibna waxaa loo baahan yahay dadka uu wax la baranayo sida aadaab isagana ayaa looga baahan yahay uu kula noolaado iyo ka uu dooranayo insha allahu tacaala kadib marka waxaan ka bilaabaynaa aadaabta qofka wax baranaya isaga naf ahaantiisa looga baahan yahay midda koobaad waxaa weeyaan ikhlaasu niya marka uu calmalka ama uu cilmiga rabo inuu barto waa inuu ilaahay daraaddii keliya ula jeedaa ilaahay daraaddii ula jeediddu ma diidayso in aad leedahay dadka aad sii bartid waa in aad leedahay alimaam axmed markii la weydiiyey waa inoo iman doonaaye qofku sidee buu ikhlaas cilmiga uu ku keeni karaa laba shay waa inuu niyoodaa buu idhi awalan inuu isagu naftiisa jahliga intuu ka kor qaado uu alle ku caabuda cilmigan ta kalena ummadda uu sii gaarsiiyo oo uu jahliga kaga kor qaado taasi waxay ugu filan tahay ikhlaas labadiisa dhinac weeye taas intaas ayaa ugu filan xadiidkii ay culimmadu ka wada bilaabi jireen mu'alafaadkooda markay wax qorayaan wuxuu yidhi nabigu sal lla ly slam innama alacmaalu biاnniyaat wa innama likulli imri'in maa nawaa shay kastaba niyadaba kama soo hadhaba qof kastana waxaa ajriga laga siinayaa waxa uu ula niyoodo uun markaa qofkii cilmi raadsada oo ilaahay wejigiisa u raadsada ilaahay cilmigaasi waa ku anfacaya ilaahay daraaddii oo la jeeda cilmigaa waa ku anfacayaa dadka kale ee muslimiinta iyo ummadaha kalena wuu anfacaya laakiin qofkii adduunya ula jeedsada sumcad ha lagu maqlo adduunye inuu ku urursado wayna badan yihiin dadkaasi wuxuu gelayaa nabiga sala allahu calayh wasalam xadiidkiisa soo socda ayuu hoosgelayaa oo uu yidhi nabigu sala allah alay slam man talaba alcilma liyumaariya bihi الsufahaa aw liyubaahiya bihi alculamaa aw liyasrifa wujuuha annaasi ilayh fahuwa fi الnaar nacuudu biاllahi minha qofkii cilmiga u raadsada in uu dadka sufahada ah shaki ku geliyo oo uu fadhi ku dirir ku galo oo uu doodaha kula gala dadka sufahada waxaa laga wadaa dadka aan caqliga badan lahayn ama juhaasha ah yaa laga wadaa ama raba inuu culimmada kula tartamo jaari waxaa weeye kula tartamo anigu caalim baan ahay hebelna waa caalim ama dadku xaggiisa inay u soo leexdaan bas keliya liyasrifa bihi wujuuha annaas dadka wejigooda inuu xaggiisa ilaahay isagu u soo leexdo kaa ilaahay wuxuu yidhi naarta ayuu gelinayaa ilaahay hanaga badbaadiyo khatar weyn baa runtii lagu sugan yahay riwaayo kale waxaa ahayd nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi man talaba cilman mima yubtagaa bihi wajhu allah cilmi qofkii dalba oo wixii ilaahay daraaddii loola jeedaya laa yatacallamahu ila liyusiiba bihi caradan min addunya lam yajid carafa aljannati yowma alqiyaamah qofkii cilmi oo ilaahay daraaddii loola jeeda raadsada oo laakiin isagu oola jeedin
oo adduunya bidhbidhkeeda iyo wixii lamida ku raadsaday jannada carafteeda xitaa ma helayo jannada carafteedana meel fog baa laga helaa yowmal qiyaamaha ilaahay nagama xarimo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka magan gali jiray markastaba cilmiga dhibka badan ee aan saaxiibkii aan anfacaynin ee ilaahay daraadii aan loola jeedin ilaahay buu ka magan gali jiray xadiidka uu wariyay abi hurayra ayaa ina tusaya radiyallahu ta'ala anhu nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam uu ku ducaysan jiray allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' afar shay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ka magan galay ducadiisan min ilmin la yanfa' wa ilmi an naftiisa qofku usan ku intifaacaynin dadkana usan ku anfacaynin wa min qalbin la yakhsha' qalbi aan khushuuc iyo isbihin iyo ilaahay u dhawaansho aan lahayn wa min nafsin la tashba' naf aan dhargin baa ku soo dar uun leh taasna ilaahay buu ka magan garay nabigu sallallahu alayhi wasallam waayo qaniinimada iyo qanaacada ayaa qofka dhargisa wa min du'aa'in la yusma' iyo du'a ilaahay buu qofku bariyaa lamana yeelayo inta nabigu sallallahu alayhi wasallam aad buu ga magan galay bal dadka aan ilaahay daraadii aan cilmiga oo la jeedin nabigu wuxuu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam xadiis abi hurayra warinay wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam waxaan maqlay buu isagoo leh inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi dadka yawm al-qiyamaha dadka la xukumayo ee maxkamadda ilaahigiihi ay ku dhacayso dadka ugu horeeya wuxuu ku sheegay saddex qaybood oo dadku adduunka markii ay joogeen aad iyo aad kor loo fiirin jiray oo la oran jiray hebel oo kale ayaa la mid dhiga saddexdaas ayaa dadka ugu horeeya oo maxkamaddu ay ku dhici doonto ugu horeeya laakiin maxkamadda ku dhacaysa ay maxkamad quruxsan maahan waa maxkamad aad iyo aad foolxun midka koobaad waxa weeye rajulun istushhida waa nin intuu gaaladii la dagaalamayay sidaa ku shahiiday oo sidaa ku dhintay fa utiya bihi maxkamaddii baa la keenaya maxkamaddii ilaahay baa maxkamad meesha qaadi doona fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha ni'amti ilaahay buu baray war waxaasoo nicmeen ku qabtay ma garanaysa haadii buu guray qaala wuxuu yidhi famaa camilta fiiha maxaad samaysay oo nicamtii badnayd iyo wanaaggan kuu sameeyey qaala wuxuu yidhi qaataltu fiika xata istushhidtu waan dagaalamay ilaa aan shahiid ka noqday qaala ilaahay baa wuxuu ku yidhi kadabta been baad sheegaysaa walaakinaka qaatalta lian yuqaala jarii waa dagaalantay waa dagaalamaysay hada waa nin shahiid ku dhintay weeyaan si lagu yidhaaho waa nin geesi oo dhigiran si lagu yidhaaho yaa u dagaalamaysay maxaa dhacaya marka waqad qiila buu yidhi intiina way soo dhammaatay maanta dadkii maxkamadda dadkii ma aha dadka qaadaya waa aniga weeye maxkamaddu waa meel kale dadkii maxkamadda ku saarayay ee xukunka ku siiyey inaad tahay nin dhiiran maxkamadoodii way dhammaatay iyo xukunkii taskiyadii ay kuu qoreen intuba way dhammaatay waqad qiil waa la yidhi warkaasi waa dhammaaday buu ilaahay leeyahay maxaa la samaynaya marka uma umira bihi amar baa lagu bixinaya fasuxiba calaa wajhihi xataa ulqiya fi nnaar weji baa loo jiidayaa ilaa naarta lagaga tuuro ilaan waxaa weeye maalinkaas dadka ahlu naarka oo dhan wejiyaashooda ayaa lagu soo ururin doonaa oo wejiga iyakoo loo jiidayo ayaa naarta lagu wada tuuri doonaa midka kale muxuu yahay waa dadkii korka loo fiirinayay warajulun tacallama alcilm waa nin cilmi buu bartay wacallamahu muusan la fadhiisanayna dadka ayuu baray wa qara'a alqur'aana qur'aanka waa yaqaanaa waa isku mid dadkiina wuu baray fautiya bihi waa loola yimid facarafahu nicamahu ilaahay baa nicamtiisii aqoonsiiyey facarafahaa isagiina wuu gartay oo wuu aqoonsaday nicamtii ilaahay u qabtay oo dhan baa lagu dultiriyey weeyaan faqaala wuxuu yidhi famaa camilta fiiha waxaasoo nicmo ahan kuu galladaystay inaan cilmi ku baray inaan qur'aan ku baray oo nicmo ilayn ilaahay baa ku xifdisiiye maxaad ku qabatay wuxuu yidhi ninkii tacallamtu alcilma cilmigii waan bartay wacallamtuhu dadkiina waan baray wa qara'tu fiika alqur'aan qur'aankiina waan aqriyey adiga daraadda ilaahay wuxuu leeyahay kadabta been baad sheegtay walaakinaka tacallamta alcilma liyuqaala caalimun waa hebel in lagu yidhaaho waa ninkii caalimkaa in lagu yidhaaho wa qara'ta alqur'aana liyuqaala huwa qaari'un waa nin wax yaqaano oo qur'aanka aqriya in lagu yidhaaho waqad qiila maxkamaddaasi way soo dhammaatay iyo wixii ay taskiya dadku kuu qoreen warqaddii fiicnayd ay ku siiyeen way soo dhammaatay
ثم أمر به فصحب به في وجهه إلى النار نار تأيا وجهي سلوجو شيديا إلهي أنا قبض باديو قيب تصدحات وضدك أي كرفيرين ينمحويا هي ورجل وسع الله عليه وأن إلهي واسع سيئ وحول بدن ألسيئ حول بدن ألسيئ مع ذلك وأعطاه من أصناف المال كله حول قيبتي أهايين بوالسيئ فأوتي به فعرفه نعمه عليه نعمتي سيب أقونسي إلهي مركي لكاني قال إلهي وحوري فما عملت عليها محاد نعمتي أو عمل فشي قال وحوري ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك جد ما تشيرو آتعشاي إلا قم بحي حولها إلا وانكو بحي يبونك سيري إلهي وحكو لي كذبت بين باتشيكتي ولكنك فعلت ليقال هو جواد وقد قيل ثم أمر به فصحب فيه على وجهه ثم ألقي في النار وجه بالله أمر انتي لقو بحيي وجه لو تشيديا إلى النار تا لغا تورو اسو وجه لو تشيديو dadku saddexda qaybood ba adduunka markii la joogo waxay isku waafaqsan yihiin inay dad qiimo leeyihiin dadkii ilaahay daraadii gaalada oo la dagaalama shahiid jihaad buu ku dhintay dadku way jecel yihiin dadkii caalimka ah ee quraanka si fiican u yaqaan waa caalim quraanka si fiican u yaqaan ya dadku way jecel yihiin taskiya fiican bayna siiyaan qofka xoolo badan alla siiyo oo si fiican u bixiyo meel kastaba masaajida dhiso oo agoonta siiyo oo fulaanka dadku taskiya fiican bay u qoraan hebel wuu fiican yahay bidaan taskiyooyinka ay u qoreen laakiin xagga ilaahay ma ka soconaysa wuxuu ilaahay noo sheegayaa dad aan taskiyada aan u qornay iyo wanaagga aan asamaynay inaku ayna ka soconayna xaggiisa oo tiisi ay u hormartay oo niyadoodu ay xumayd oo waxaas oo dhan ilaahay daraadii oo la jeedin ilaan dadku korka un bay arkayaan qamiiskan qabi iyo shaatigan qabi iyo cumaamadan qaba un bay dadku arkayaan gudaha wax ku jira ma oga ya subhanallah waxaan sheegay un bay arkaan laakiin gudaha Allah ayaa og alla dhinac kale ayuu kaxeeyay dadkaas oo dhan dadka bal alla xukumaya dadka ugu horeeya ayay noqdeen bal aanu nimaadno dadkii salafkii waxay ka yiraahdeen niyada oo la hagaajiyo iyo niyada oon ilaahay daraadii loola jeedin Abdullah ibn al-Mubarak wuxuu yiri ma min shay'in afdalu min talab al-ilm lillah ma jiro shay ka fadli badan ilaahay cilmiga in ilaahay daraadii loola jeedo oo loo dalbo wa ma min shay'in abghadu ila Allah min talab al-ilm li ghayri Allah shay ilaahay u kan nacib yahayna ma jiro cilmiga oo ilaahay waxaan ahayn loola jeedo الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وحوري وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه الإمام الشافعي مركو لمني يا وحوري نن عالمنا وها رضي الله رحمه الله تعالى وحان تعالان لها بوري دادكو إن علمك إن قبرتان أون لأورانين إمام الشافعي بلا قبرتاي أصلا إن برتان بس كليه dadku daaima waxay jecel yihiin inuu yiraaho loo nisbeeyo oo wixii ama faa'iido laga helay ama wixii laga bartay yiraaho hebel baan ka bartay isagu saasaan jeclaan lahaa buuri Sufyaan ibn Uyaynah wuxuu rahimahullahu ta'ala kuntu qad utiitu fahma al-Qur'ani qur'aanka fahamkiisan si fiican ya ilaahi isiyay buuri falamma qabiltu surrata min abi ja'far sulibtu abi ja'far waxa muslimiinta dawla al-Abbasiyya dadkii madaxda ayuu ahaa marka abi ja'far markii aan ka aqbalay buuri surradii kiishkii loogu soo ridi jiray culimada lacagta loogu soo ridi jiray dadka boqoradu ay siin jireen markii aan kiishkii ka aqbalay buuri yaa wax aliyaala wixii faham ahaa in quraanka ilaahay isiiyo oo dhanba uu iga masaxay buuri waa tartaray buuri waayo meesha waxa soo galay wax kale ayaa soo galay حماد بن سلمة رضي الله تعالى عنه من طلب الحديث لغير الله مكر به قفكي حديث طلبه وحان إلهي درادي هين أطلبه قفك سوى قفل خداعي ولا خيامي ومكر اللي سميه ننكي بشر الحافقة أهانتري إلهي درادي وقواي زاهدك وحوري أوحى الله تعالى إلى داود نبي داود إلهي وحيوذي لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا أديجي يا أنيجا والنبي داود ويان أديجي يا أنيجا دحضة هيلين إلا أن علماء وحود حيان مخلوقات كي الله يود حيانه عالم فتنيسن هيلين وفيصدك بسكره عن محبتي إلهي جعيل كيسا إنه والدي سن
iyo adduunya jacaylkiisa iyo wixii la midka uu kaaga leexiyo jacaylkayga ulaa'ika quttaacu turuqi quttaacu tariiqi can cibaadii wuxuu yidhi culimmada aan oola jeedin iyo dadka wax baranaya een ilaahay daraaddii oola jeedin waxaa lagu magacaaba uhi quttaacu turuq isbaadhooyinka kuwa dhigta ya mooryaanta isbaadhada dhigata kuwaasaa lagu magacaabaa buuhi leanna waxa u dhexeeyaan alliyo dadkiiba u dhexeeyaan makhluuqaadkii waa jidgooyayna samaynayaan markaas kuwaas daa'iman wuxuu yidhi kuwaas annakii iyo makhluuqaadka dhexdooda ha yeelin سفيان الثوري وحول رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي سان نيدي ولد ذالي ند ويني ولا تعالي waxaan oo la tacaalay shay iga daran ma jiraan buuri niyadayda inaan toosiyo niyadu waxay u baahan tahay mar kasta amal kasta oo ku jirto inay ku toosayso mahan amal kasta waxaad rabaa inaad tiraaho haddaan toosinaya oo markaad fadhiisato dhan aad tiraaho ilaahay daraadii baan wala wadaa al-imaam ahmed rahimahullahu ta'ala wuxuu yiri al-ilmu la ya'diluhu shay ilmiga wax la siman ma jiro liman sahhat niyyatuhu niyadiisu qofkii ay hagaagto قالوا كيف ذلك نيديس سيو هجاجيسا قال وحول ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره وحول النيونيا إنه جهل نفتس ككر قاضو أو مخلوقات كنا وككر قاضو عمران بن ذر ننكي لورنشري يا وحكولي أبيه وعمر بن الذر بانشذا يا أبيه وحكولي يا أبي أبها يو ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء مركز ضدك وعذين يسوي ويان وإذا وعظهم غيرك لا يبكون مركو هذيك قفان هين وعذين ما بأويان با وامحي قال وحوري يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة وحي جاهلي قال يقاني قفي مركو كدنتو ودنت قف إسلام بهد بدن ويجرتا meelo badan bay ka jirtaa islaam baa la soo kireystaa si ay kugu oydo oo lacag bay qaadataa islaamna waxa weeye waa talaga dhintay ninkeeda dhintay ama ilmaheeda uu dhintay marka waxa taa lagu magacaabaa athakla baa la yiraahdaa an-naihatu thakla thaklada waxa weeye ilkihii bay weyday yaani ilkihii wixii meeshii u ahaa oo kale weyday dhoolahan markay weydaa waxa la yiraahdaa thakla dhoolihii bay weyday taas marka dhoolaha ay ka dhaceen oo uu dhintay qofkii u dhawaa iyo tii la soo kireystay ee la yidhi ooy isku qalbiga kama ooyayaan tani lacag bay qaadatay way isjabinaysaa way samaynaysaa laakiin ilaahay daraadii uma wado laakiin tan qalbiga ka ooyaysa sidaas oo kale qofkii ilaahay daraadii oo la wada cilmigan dadka ta'thir yuu ku sameeyaa iyo raad yuu ku sameeyaa raad buu kaga tagaa hadduusan laakiin ilaahay daraadii oo la wadin raad kagama tagayo wa kam imisa kutub la alifay oo hadda culimadii aliftay waxba ayna ka jirin ilaahay daraadii baan loola jeedin wax badan oo meesha ka baxday waxa la yiri culimadu barigii hore way saameyn jireen dadka laakiin hadda maxay saameyntu loo waayay saameyntu ma jirtaa hadda sidii ay ahaan jirtay waxa la hadda culimadu way jiiftaa dad mayidiin ay la hadlayaan dad dhintay bay la hadlayaan markii hore culimadu way soo jeeday dad jiifay la hadlayeen marka qof jiifa inaad toosisaay adu hadda soo jeedo way ku sahlan tahay laakiin adu hadda jiifto qof dhintay seedu toosinaysa waa saab waa adag kaanaysa marka shaacirkan bal wuxuu yiri aan aragno ibraahim ibn ismaaciil al-ansari rahimahullahu ta'ala wuxuu yiri man talaba al-ilma lil-ma'adi faza bi fadl min ar-rashadi faya la khusrana talibihi linayl fadl min al-ibadi qofkii cilmi u raadsada aakhira daraadeed wuxuu ku liibaanaa dheeraad ilaahay xaqiisa ka ahaatay hoog iyo halaag waxay ku dhacayaan qofka cilmi raadsanaya oo dalbaya inuu adoomada fadli iyo dheeraad iyo adduunyo inuu kaga gaadho marka aadaabta koobaad aan ku dheeraanay waana muhiim bay ahayd oo looga baahan yahay waxa weeye waa inuu niyadiisa qofku markuu wax baranayo ilaahay daraadii oo la jeedo aadaabta labaad waxa weeyaan waa inuu baatinkiisa guda ku jirtiisa waa inuu ka dahiraa dabeecooyinka akhlaaqiyaadka xunxunka waa inuu ka dahiraa maxaa ka mid ah dabeecooyinka gilliga xasadka gardarrada qishiga kibirka istustuska isla yaabidda shuhrada bakhiilnimada
يا فانتنك حرقوا صعدك isu qurxinta dadka uu isu qurxinayo inuu ammaan ka raadsado ya inuu dadka ceebahooda isku mashquuliyo ceebihiisana uu ka mashquulo inuu dadka xanto inuu isku dirdiro inuu been abuurto inuu fuxshi iyo xumaan la yimaado dadka inuu xaqirto waxaasoo dhan waxaa weeye al-amraad al-baatiniya lagu soo ururiyaa amraadta jirada gudaha ku dhacda weeyaan qofka ardayga qofkii kaleba loo baahan yahay inuu waxa ka fogaado qofkii ardayga ahaa isagana waxa loo baahan yahay in aad uga soo fogaado innaka oon ka hadlaynin mid walbaba intaas oo waa akhlaaqiyadka la yidhaahaa al-akhlaaqiyat ar-radila xunxunka annakoon ka hadlaynin wixii axaadiid ku soo aroortay wixii adilla ku soo aroortay waxaan ka hadlaynaa ibn al-jamaaca al-kinani kitaabkiisa waxa uu ku yidhi yaan ka hadlaynaa bas keliya markuu taa ka hadlayay wuxuu yidhi فالحذر الحذر وكدكتونو وكدكتونو من هذه الصفات الخبيثة تلمامهم فرفوشحن والأخلاق الرذيلة هي أخلاقات كحنهك فإنها باب كل شر باب كستوء شر بي فريسا بل هي الشر كله شر أردن بي الباب وتهي وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمن بكثير من هذه الصفات إلا من عصم الله تعالى وحولي jirooyinka dad badan oo fuqahada ah oo adduunkan hadda joogay waqtigiisu ka hadlay waxa weey waa qarnu thaamin wuxuu dhintay 733 buu dhintay ibn jamaaca waa sheekh shaafici weeyaan dad badan oo hadda waqtigan jooga jirooyinkaasi gudaha uga dhacdo way ku jirtaa buuri ilaahay qofku ilaaliyo maahane wala siyama alhasadu والعجب والرياء واحتقار الناس بودي وحابن يدو ماشي بكوسي جيرين بودي حسدك اسلا يابدا استستسك dadka xaqirideeda ninka haduu sheekh yahay wuxuu sumaleeyaa inuu dadka ilaahay uga dhow yahay inuu dadka ka fiican yahay saas sumaleeyaa buuri waa qowlkii uu sheegay weeyaan ibn jamaaca uu sheegay wa adwiyatu dhalika arrinkaas dawadiisa hadii aad rabto buuri mustawfaatun fi kutub ar-raqaa'iq hadda kutubtan aad loo aqrinin bay kamid tahay kutub ar-raqaa'iq wa kutub az-zuhd dadku aad uma aqriyaan waa bal iska dhaafayba war-raqaa'iq waxa la leeyahay war suufiyaashii waxyaabahaas ku haray naga daa war leysad hada sheekh والرقائق وحوى قلبك الله تربى إلا تلعيه سوفيا الشقاكم لهان قلبك الله تربى إلا تلعيه انتاسو الإمام أحمد با وحكا قري ابن أبي الدنيا با انتاسو كقري كتاب الزهد انتاسو علماء أيا وحكا قرطي الزهد جاء الرقائق ذا كتبت هذا وحكا قرطي مركا قفك الرب قلبك سينو طاهرو كتبت رقائق ذا كهل يساي هذا آداب تصدح هذا وحويان وإنه قفكو واسكو قرحيا أخلاقيات كوناكسن ودن وإن اسكو قرحيا deeqdii iyo wanaagii iyo dabiica wanaagii oo waxa soo dhan waa inuu ka dhigtaa akhlaaqiyad waa tii aan soo sheegnay wixii ka soo horjeeday waa inuu ka caado dhigtaa oo uu isku dayday inuu noqdo ibn sirin maxamed ibn sirin isagoo hasha ka hadlay baa wuxuu yiri kaanuu yata'allamuuna al-hadiya kama yata'allamuuna al-ilma waxay aadaabta dadkii hore u baran jireen sida ay u baranayaan oo kale cilmiga oo dadkii hore waxay hormarin jireen aadaabta hadda waxyaabaha aan aad la isu weydiinin bay kamid tahay aadaabta waxaad arkaysaa nin sheekha oo aadaabta ka dhunsan tahay waa sheekh laakiin aadaabta away waan ka hadli doonaa insha Allah taala kutubta markaad aqrisatana waad ka hadlaysaa dadkii ma ixtiraamayo masaajidka waa iska imanaya soo doonu isaga hadlaya dadka soo doonu caaya fadhi ku dir buu galay waraawa sheekhnimada ya war aadaabtu iyada ka horeysa maxamed ibn sirin waxa weeyaan waa Anas bin Malik ardaygiisii weeyaan marka wuxuu yiri kaanu yata'allamuuna al-hadya kama yata'allamuuna al-ilma aadaabta waxay u baran jireen cilmiga sida u baranayaan si lamida waan arki doonaa marka culimadu waxay ka yiraahdeen taas oo kale ibraahim ibn habib ibn shahiid wuxuu yiri aabahay baa wuxuu yiri markuu cilmiga ii dirayay yaa bunaya i'ti al-fuqaha wal ulama war fuqahada iyo culimada u tag buuri wa ta'allam minhum wax ka baro وخذ من آدابهم آداب تودنا كقاضوا يو أخلاقهم طبيعوين كودا يو هديهم منون كودا فإن ذلك كاسا أحب إلي لإيجت عليه لك أذيك من كثير من الحديث حديث بدن أو إصابرته وحان كتش على هيبوري إن آداب تأويل كيجي إصابرته مركز فقهاء محدثين تأتكتو آداب تكقاضوا وحبا أنه حديث أدبرته تاسا كتش عليه نقطة دور بانكها لنا إن شاء الله تعالى أبي الزكر العنبري وحوري علم بلا أدب علم وأن آداب لهين كنار بلا حطب وأدب أن قرية لهين دبل شذي
oo qoryo lagu huriya aan lahayn imisu sii noolaanaya waa iska baaba'aya wa adabun bilaa cilmin aadaab aan cilmi aan la soconinna ka jismin bilaa ruuxin waa jidh aadaabtii keliya hadday tahay oo nafti aan ku jirin buuhi marka ma kala hadhaan buu ka wadaa aadaabta iyo cilmigu waa labo aan kala hadhin weeyaan layth ibnu sacad raximahu allahu tacaala layth ibnu sacad wuxuu ahaa alimaam maalig iyo casrigiisii buu noolaa markaa wuxuu ahaa imaamkii caalimkii reer masar buu ahaa oo welibana alimaamu shaafici uu yidhi layth ibnu sacad isagaa ka cilmi badnaa imaamu maalik oo isagaa alimaamu shaafici sheekhiisa laakiin wuxuu yidhi ardaydiisii baa dayacday oo si fiican ugumayna dadaalin buu yidhi arday fiican buusan yeelanin ilaan ardaydaa lagu kala baxay moogta wuxuu yidhi layth ibnu sacad wuxuu arkay dadkii ardayda ahay wax ka baranayey markaa wuxuu ka arkay iyagoo aadaab la'aan samaynaya oo aadaab aan lahayn buu ka arkay wuxuu yidhi ma haada arrinkaasi muxuu yahay ma haada arrinkaa aad samaynaysaan muxuu yahay antum ilaa yasiirin min aladabi axwaju minkum ilaa kaiirin min alcilmi wax yar oo adab ah yaa laydinka baahi badan yahay buu yidhi wax badan oo cilmi ah inaad barataan layth ibnu sacad baa le raximahu allahu tacaala marka qof cilmi sheekha ama qof wax baranaya oon aadaab lahayni waxaa weeyaan macno ma leh waa inuu aadaabta dadka kale oo dhan uga dheer yahay midda afraadi waxaa weeyaan waa inuu ninka ardaygii waa inuu tawaaduc badan waa inuu leeyahay waa inuu sheekhiisa u tawaaducaa waa inuu kibirka iska ilaaliyaa cumar bin khataab radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi tacallamuu alcilma cilmiga barta watacallamuu lahu asakiinata waalwaqaar xasilooni iyo waqaar u barta watawaadacuu liman tacallamuun qofka aad ka baranaysa u tawaaduc oo nin sidaas samee walyatawaadac lakum man tucallimuun dadka aad baraysaana iyakana haydiin tawaaduceen walaa takunuu jabaabirata alculamaa culammada kuwa maskaxda adag ee qaabka daran ha noqonina walaa yaquumu cilmukum maca jahlikum cilmi inuu qofku lahaado dadkana uu ku jahli sameeyo ma ay suurtogeli karayso alimaamu maalik raximahu allahu tacaala yaa wuxuu u qoray haaruun arashiid warkan ayuu u qoray wuxuu ku yidhi idaa calimta cilman cilmi haddii aad barata buu idhi falyura calayka aharuhu raadkiisa ha lagaa arko wasakiinatahu xasiloonidiisa wasamtahu wawaqaarahu waxilmahu iyo dulqaadkiisa intaba ha lagaa arko alimaamu shaafici raximah allahu tacaala wuxuu idhi laa yatlubu axadun hada alcilma bilmulki boqortooye kuma dalbuu yidhi cilmigan qofna iyo wacizi nafsi naftiisa oo isla weyn oo fayuflixa uu liibaano walaakin man talabahu bidulli nafsi naftiisa dulligeeda qofkii ku dalba wadiiqi alcayshi iyo nolol ku cuuliyan wakhidmati alculamaa iyo culimmada inuu u khidmeeyo oo u adeego aflaxa qofkaas ayaa liibaanayuu yidhi intaa kadib markaan ka soo baxnay nuqdadda in sha allahu tacaala akhuuna hadduu ii saamaxo aan dadejinaya biidni illahi tacaala inta kaleo dhan dib baanu dhigaynaa in sha allahu tacaala wakhtiyaal kale ayuu ina siinayaa waxaa weeyaan waa aadaabta sheekhiisa marka uu la nool yahay aadaabteeboo ardaygu looga baahan yahay bal aan aragno in sha allahu tacaala midda koobaadii waxaa la rabaa inuu sheekha uu doorto sheekha waa inuu doorto oo ilaahay uu la istikhaaro u weydiisto oo cilmiga uu fiiriyo qofka uu ka qaadanayo waayo alimaamu muslim wuxuu wariyey maxamed ibnu siriin inuu yidhi ina hada alcilma diinun cilmigani waa diine fanduruu canman ta'khuduuna diinakum diintiinna qofkaad ka qaadanaysaan fiiriya marka ardaygu ma la rabo inuu yidhaaho waa sheekh keliya un qof kastaba waxaa la rabaa qofka uu wax ka qaadanayo inuu fiiriyo maxaa looga baahan yahay marka ardaygii an yanqaada lishaykhihi sheekhiisa inuu garqaadmo waxayna tusinaysaa taas ibnu cabbaas markuu ka baranayay zayd ibnu haabit wuxuu u qaban jiray faraska ayuu u qaban jiray meesha uu ku istaagaya markaasaa wuxuu odhan jiray haakada umirna an nafcala biculamaa'ina sidan ayaa nala amray inaan culimmadannada ku samayno saasuu odhan jiray alimaamu shaafici markii la yidhi culimmada maxaad sidan aad ugu weynaynaysaana wuxuu yidhi uhiinu lahum nafsii fahum yukrimuunaha walan tukrami الnafsu alatii laa tuhiinuha naftayda ayaan u dulaynayaa culimmada agtooda iyo ka karaamaynaya naftii aan iyadu culimmada agteeda u tawaaducin weligeed wuxuu lama karaameeyo midda labaadi waxaa weeye waa inuu sheekhiisu uu la wen yahay
الإمام الشافعي وحوري وقت جاء الإمام مالك وحكى برنجري ورقدة أيام ترتيب وجدي جري سئان سجى إلى عليه ورقدة عدة دي قاعدة هذا سئ وصن بقرين وإنه كصبرا هدي أو شيخي سيكسف وشو حجير حناقة وإنه كصبرا وأيو وحال بعض السلف وحيدهن من لم يصبر على ذل العلم علم الدل يقف كان كصبر بقي عمره في عماية الجهل ولقي جاهل بهانيا ومن صبر عليه قف صبرنا آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ابن عباس وحوري رضي الله تعالى عنه ذللت طالبا فعززت مطلوبا مركان علم قرات سنة دليل بانها البابدان هرتي استاجي جري مركي دمبانا شرف أيام كنا ولا هذي ننكي معاف بن عمران وحوري قفك شيخيسا كو حناقيا وحول مدياي قفك مساجد كثيريشيسا كو حناقيا waxba kama taraya sheekh cilmigi wuu iska leeyahay marka uu kala tagay hadaa isku xanaaqdan بعض الشعراء واكلها إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما ننك معلم كي ننك طبيبك لبضوض ما كراميان هدي الله نصيحين ما نصيحيان هدان لكرامين اسكغا صبر جرده هدي اد نينكي دوين لها aad ihaanaysato jahligaaga iskaga sabir haddaad tabiibkii aad ihaanaysato waxaa loo baahan yahay oo kale waa inuusan ka xishoonin cilmiga inuu sheekhiisa weydiinayo laakiin si aadaab leh uu u weydiiyo mujaahid wuxuu yidhi laa yatacalamu alcilma mustaxin walaa mustakbir qof iskibrinaya iyo qof xishoonaya cilmiga midna ma barto caaishana waa tii lahayd raxima allahu nisaa alansaar ansaar dumarkeeda allah u naxariisto lam yakun alxayaau yamnacuhunna an yatafaqahna fi ddiin diinta inay bartaan kama soo reebaynin sulaymna waa tii lahayd nabiga sal lla slam ilaahay xaqa kama xishoodee waan dhammaynaa xaqa kama xishoodee islaanta wax qabaysa ma ahaaday haddii ay ixtilaamto carabta qaarkoodna waa kii lahaa laysa alcamaa tuulu su'aali wainama تمام العمى طول السكوت على الجهل بعض الحكماء وحيلهن من لم يتحمل ذل العلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا ولقي ساسا يكهريا إن شاء الله تعالى وحي كلا إنه إيمان دونا مرر كلام مناسبات كهلي دونا وحاصل صعدة وقت جو درس قادنا يا آداب تلوجا بهني أرضيجا يا وقت جو علم قاته يا أرضيدا والله لا دجنايو إن شاء الله تعالى مناسبين كلام كل مدونا هدي بإذن الله تعالى إلهي ونلاشنا الدائمية هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.